ururka xagjirka ee Daacish ayaa nolosha ku gubay duuliyihii u dhashay wadanka boqortooyada Jordan sida lagu muujiyay muuqaal argagax leh oo lagu baahiyay baraha internetka. muuqaalkan ayaa muujinaya duuliyaha oo inta qof isbir ah lagu riday kadibna gaas lagu shubay dabna la qabadsiiyay, waxaana la rumaysan yahay in dilkani uu dhacay muddo bil ka hor ah. duuliye mucaadka saasba ayay ururka Daacish qabteen 24kii bishii Diseembar ee sanadkii la soo dhaafay kadib markii diyaaradiisa oo kamid ahayd diyaaradaha isbahaysiga ee duqeynta ku hayay ururka Daacish ay ku burburtay magaalada Riqa ee waqooyiga Syria kadibna ay gacanta ku dhigeen ururkaasi. waxaana tan iyo intii la qabtay ay dowladda Jordan dadaal ugu jirtay sidii loo sii dayn lahaa, balse taasi ma aysan suuro gelin. muuqaalkan aadka u naxdinta badan ayaa si weyn looga dhaleeceeyay dunida. xogayaha guud ee qaramada midoobay Master Ban Ki-moon ayaa sheegay in la joogo xilligii meel looga soo wada jeensan lahaa ururkan caadaystay baahinta falalka reeba argagaxa. dhanka kale boqor Cabdallah labaad ee Jordan oo booqasho ku jooga magaalada tan Washington ayaa shir jaraa'ida uu qabtay wacad ku maray in ay jawaab adag ka bixin doonaan dhacdadani. استشهاد الطيار الشهيد البطل معاذ الكساسبة رحمة الله عليه على يد تنظيم داعش الإرهابي الجبان. waxaan la wadaagayaa buu yiri dareenka murugada iyo carada leh dhimashada geesi Mucaad Kasaasba naxariis Rabbi ha siiye oo ay dileen argagixisada fulayada ee Daacish, taasi oo ah fal dambi ah kana baxsan aadanimada salna aan ku lahayn diinta Islaamka ee wanaagsan. arrintaasi adag darteed waxaa waajib nagu ah dhammaanteen inaynu u guntano sidii aynu meel uga soo wada jeensan lahayn kooxdaasi. taasi waxa ay noo horseedaysaa buu yiri awood iyo isku xirnaan. لن تزيدنا إلا قوة. boqor Cabdallah ayaa soo gabagabeeyay booqashadiisii Mareykanka isagoona u duulay dalkiisa si uga qayb galo baroordiiqda loo sameeyo duuliyaha la dilay. dhanka kale madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo kulan kooban kula yeeshay Washington boqor Cabdallah ayaa cambaareeyay dilka duuliyaha isagoona ku tilmaamay falkan mid muujinaya cadowtinimada iyo arxandarrada ururka Daacish. Obama ayaa sheegay in Mareykanku uu sii laba jibaarayo beegsiga xarumaha ururkaasi. Obama waxa uu yiri waxaanu sii laba jibaaraynaa ciqaabta aanu ku hayno xagjirinta si aanu xaqiijino ka takhalusida ururkaasi. dowladda Jordan ayaa dilka duuliyaheeda durba waxay uga jawaabtay dil toogasho ay ku fulisay haweeney u dhalatay wadanka Ciraaq oo maleegaysay qaraxyo ismiidaamin oo lagu qaado wadanka Jordan. guud ahaan waxa maanta si guud caalamka looga cambaareeyay falkan aadka uga fog bini'aadanimada, wuxuuna qayb ka noqonayaa dilal arxandarro ah oo maalmihii u dambeeyay ee ururka la magac baxay dowladda Islaamiga ee Ciraaq iyo Syria ay ka wadaan dhulka ay maamulaan. Saciid Muuse Daahir, Universal TV, Washington DC.